labadayda xiniyood baan ku joogaa Yurub labadayda xiniyood baan ku noolahay ayagaan ku noolaan doonaa ayagaanan ku cadgoosanaqa hadday media noqotana lawyer baan qabsaday rage manager baa lagu abayuusay anaa kaa yeersiiyey daahir cabdulle calasow iyo weliba kabtan ayuub ayaa baraha bulshada baryahanba aad iskugu hayay daahir cabdulle calasow oo aad baraha bulshada caan ugu ahaa iskuna tilmaamay inuu yahay madaxweynaha baraha bulshada ee dhanka Soomaalida ayaa waxa aad iyo aad ay iskugu hayaan kabtan ayuub oo isaguna Facebook iyo weliba YouTube-ka isticmaala labada nin ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa isku hayeen baraha bulshada iyagoo isu jeedinayay eedeymo culculus oo midba midka kale uu ku eedeynayay labada nin oo muddo saaxiib ah ayaa hadda waxa ay eedeymo culus isu jeedinayaan iyadoo oo ay eedentoodu socotay muddo isbuucya daahir cabdulle calasow ayaa baryahanba muuqaalo ka soo duubayay kabtan ayuub oo ku sheegayo in kabtan ayuub laga faafiyay waxa uu ku dirayay muuqaaladaas isagoo ku tilmaamaya nin baraha bulshada ku fadeexadoobay waa sida uu sheegayo daahir cabdulle calasow ayaa waxa uu muuqaalo ka soo duubay kabtan ayuub oo baraha bulshada uu ku faafiyay isagoo ooba ku sheegaya in ay yihiin fadeexa soo wajahday kabtan ayuub waa sida uu sheegaya daahir cabdulle calasow oo in dhaweydba baraha bulshada kabtan ayuub eedeymo culus ugu jeedinayay laakiin dhinaca kale kabtan ayuub oo ka jawaabayay eedeymahaasi uu jeediyey daahir cabdulle calasow ayaa eedeymihii ugu cuslaa iyo weerar afka ku qaaday isagoo ku tilmaamay nin aan xishoonayn waa sida uu sheegay kabtan ayuub waxa uu sheegay kabtan ayuub daahir cabdulle calasow nin la tirsada dumarka iyo haweenka ragna aysan ishelin waa sida uu sheegay kabtan ayuub oo muuqaal uu iska soo duubay ku faafiyay baraha bulshada taasi ay dhacday ayaa waxaa gabi ahaanba weerar ku soo qaaday YouTube-kii kabtan ayuub daahir cabdulle calasow isaga oo hawada ka saaray oo muuqaaladii ugu jirana badankoodii ka bixiyay waxa uu daahir cabdulle calasow ku tilmaamay in uu weerar ku soo qaaday dhankaas YouTube-kii kabtan ayuub isagoo oo sheegay inuusan eedeymo culus oo uu kaga jawaabayo in uu uga jawaabayay in weerarkaas ku soo qaado waxa uu ku sheegay in uu kabtan ayuub janaalkiisii ka saaray hawada isagoo oo ku tilmaamay in baraha bulshada uu ugu sareeyo madaxweynena uu ka yahay qofkii ay isku qabtaanna ugu dambeyntii uu hawada ka saaray YouTube-kiisa sidan oo kale ayaa daahir cabdulle calasow waxa uu janaalo badan oo dad ay leeyihiin uga saaray baraha bulshada oo ay kamid yihiin janaalkii Sharmaboy oo uu ka soo dhaxadlay isagoo oo ku sheegay in uu yahay ninka baraha bulshada ugu sareeya dhanka Soomaalida oo cid uga daba hadlin laakiin dhinaca kale kabtan ayuub oo ka falcelinayay warkaasi ayaa waxa uu soo dhigay baraha bulshada ama Facebook-giisa isagoo oo sheegay in YouTube-kiisa uu ku socdo dib u habeyn dadkuna ay dulqaataan labada nin ayaa waxa ay in dhaweydba xurguf ay u dhaxaysay iyaga oo midba midka kale eedeymaha u jeedinayay labada nin ayaa waxay hayeen muddo dheer saaxiibo iyaga oo isku qabtay arrintii Sharmaboy ee markii daahir calasow ay isqabteen laakiin labada nin ayaa hadda dagaalkooda waxa la sheegayaa in uu sii socon doono muddaba labada nin ayaa waxaa midba midka kale uu ku eedeeyaa in uusan xishoon ama baraha bulshada uu la soo taagan yahay waxyaalo aan habboonayn dadka Facebook isticmaalay iyo baraha bulshada ayaa in dhaweydba aad u raahayay labada nin oo weeraro culus isweyda